haddii ilaahay cimri isiiyo waxaan tusi doonaa baraha bulshada ninka ugu saameynta badan inaan noqdo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. halkaan naga fiirinaysid naga daawanaysid waa YouTube-keena YouTube-ka naga wada dhaxeeya idinkii annagaba iyo page-ka aan ku leenahay halka iyo Facebook-ka meesha aad ku aragtay labada muuqaal waxaan ka codsanayaa inaan ugu soo biirto leegta lagu dhiirigeliyo ma raba inaan hadalkan ku dheereeyo waxaan rabaa inaan horta muuqaal yar intuso intaan hadalkan ku dheereen ka muuqaal yar inaan intuso kadibna aan falaqayno muuqaalka yaanan inkaga hor dhicin hadal badan inaan gelin. waa kuma qolada ama dadka uu ku tashanayo sheeqana la magac baxaya Shantai waxaad aragtaan mar kasta isagoo dhaar cagajuglayn handadaad hawada soo marsiinaya maxaa ka jira inuu yahay faalalow. sidoo kale waxaan rabaa inaan kula wadaago xogog hoose oo aadan ka ogeyn shakhsigana la magac baxay Shantai intaan u gudagelin muuqaalkan oo dhammaystiran waxaa si naxariis iyo xushmad ku dheehan tahay kaaga codsanaya daawade in muuqaalkan aad like saarto aadna sii share gareyso asxaabtaada aad la wadaagto adigoo bogeena follow dhahanayo mahadsanid. fartuunay xisho عطوش يرى أروسكيسي أضاجع ياد كلهم قاتي وأنا هاي من مرايد أهولا يا شري والجبل خبطة هدي إلهي عمري إسيو وحاني تصدونا براها بلشدة نينك وغصة ما أنت بدنينا نقدم. magaciisa waa Salaada Maxamed waxa uu ku magac dheer yahay Sheekh Shantai wuxuu ku dhashay degmada Cadale oo uu ku soo barbaaray waxna ku soo bartay oo uu xero waa ku soo ahay sanadkii 2000 ayuu u ruqaansaday dhankaasi caasimada dalka ee Muqdisho wuxuu ku biiray maxkamadihii Islaamiga ahay wuxuu ahaa midka ugu sareeyo maktabatu dacwa ee gobolka Shabeellada Dhexe gaar ahaan magaalada Jowhar sidoo kale in ka badan 10 sano ayay ku qaadatay inuu cagta soo marsho masaajidyada ku yaala gobolka Banaadir oo dhan wuxuuna soo noqday kow muadin iclaam ka qaabilsan labo imaam shanta waqti dadka tujiyo saddex mudarris kursi iyo miis masjidka ku leh oo jamaacada waxbaro afar khadiiba maalinka jumcaha khudbada akhriya laakiin Shantai intaan oo dhan waxa uu ku bedeshay maanta inuu reaction ka dhex bixiyo barta ay bulshada ku kulanto oo loo yaqaan social media isagoo lacago waaliya ka sameeyo muuqaalada uu soo galisho bartiisa YouTube-ka iyo Facebook-ka wuxuu ciwaan uga soo dhigtaa qof caan ah si uu u helo daawasho xad dhaaf ah. Sheekh Shantai ayaa ku dhex rafanayo baraha bulshada in ka yar 4 bilood iyo 27 cisho wuxuuna kala gaaray dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee ku sugan dal iyo dibad isagoo dadkii ka kala dhigay kuwa uu diinta ka saaro kuwa uu wadanka u diido oo uu yiraahdo Soomaaliya ma soo gali kartaan iyo kuwa uu dil iyo afaduuba uga hanjabo. kilibka ugu dambeeyo baabajay oo una seexaynayno qaniisiyada ad fadhido oo cilmi ugu horay xiriir ku jar aniga wax waraysi oo aan nisiihayo ma jiraan aniga idinku waan kala tagnay. sheeqan oo ay culimadu u taqaano dabacasirka cusub ayaa laga mamnuucay soo galida masaajido badan oo ku yaala Xamar waxaana hadda uu qorsheynayaa safar uu uga haajiro magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya. Shantai waxa la xiray in ka badan 34 jeer laga soo bilaabo xilligii Sheekh Shariif Sheekh Ahmed ilaa iyo Farmaajo sidoo kale waxa gabi ahaan baa laga mamnuucay imaanshiyaha magaalada Jowhar isagoo laga soo raacdeeyay dhawaan sababaha ugu badan ee lagu xiraayay Shantai ayay ku sheegeen dadka yaqaano go'aanada fudud ee uu ka مسائل خلافية ويا كجابسدين علماء ووينا أسجى كعلم جبناي إلا ودي جودا بنايستيدد وسنة حكم كودا دليل وهينين أنت لقى ممنوعين مساجد يدا وحوهاي مدا كل إحدى قالمو oo yeelada iyo dhalaanka ku dhex feero gudaha beedka Ilaahay. Shantai oo ah mid la garnaqsado banakoolka gurigiisa oo gadaal ka dhigdhigtay kitaabo iyo buugaag Carbeed oo dagaal ba'an la galo kaamirada hortaalo ayaa la isku raacay inaysan jirin dad bini aadam ah oo hor fadhiyo marka uu daldalmayo ama uu soo gudbinayo fariimaha uu markaasi ku weerarayo shakhsiyaadka caanka ka baraha bulshada. Shantai wuxuu jabiyay shuruudihii laga doonayay daaciga Ilaahay dartiisa u taagan wuxuu ku sifoobay akhlaaq la'aan dulqaad yari iyo aflagaado joogta. culimada Soomaaliyeed ayaa ku tilmaamay Shantai Carabiga bartay maadaama 6 sano oo noloshiisa ka mid ah raaci ka ahay baadiye ku yaala Sacuudi Arabiya. dadka social media isticmaalo Shantai waxay u yaqaanaan shahwaha sheeqyaasha sida aan ogsoonahay shahwah wuxuu soo duubaa in ka badan 50 muuqaal oo isku mid ah oo midkiiba soconayo 1 daqiiqo taas oo u dhiganto marka la isku geeyo 1 muuqaal oo soconayo wax ka yar 1 saac halka Sheekh Shantai uu soo duubo qofka uu maagayo muuqaalo soconayo in ka badan 1 saac oo hadii la jarjaro sidii shahwah noqonayso 60 muuqaal oo isku makaan ah. sidoo kale sheeqan waa mid aaminsan inuusan noolaa doonin qofkii qaladkiisa tuso
geysto ugumana hanjabo inuu xabad ku dhufanayo ee waxa uu ku booteeyaa qodax ama cirbado uu ku mudi doono qofkuu maago taas oo dadkii qaarkii ay u fasirteen inuu yahay tafaafulow ama uu la shaqeeyo qoma dadka qaribo haddaba daawade adiga muxuu kula yahay shakhsigan sii sheergale muuqaalka haddii aad inala socotay kulay waa ila daawateena u malaynaa muuqaalka aad wada aragteen kulay warbixin kooban waad ka baratay Shantaay wuxuu yahay iyo kulayba sida aan ugu bartay Sheikh Shantaay baraa bulshada oo ayantan dabsi dardar ani midda aan fahmi lahayaa waxay tahay marka dhalinyarta Soomaaliyeed dhibaatooyinka lagu hayo nin culama ama nin mushaaqa oo ka hadla arkaysa laakiin dambi yar oo ama laga toobad keeni karo ama khalad yar ay ku dhacaan baa diinta looga saaraya qof dhan oo muslim ah oo dambi ku dhacay baa diinta looga saaraya midda kale oo aan fahmi lahayaa waxay tahay si dhiig in la bixiyo in qof bini aadan oo dambi yar galo midda daran bal isoo jawaab isoo sheeg culimada Soomaaliyeed midaas karaba dhiig in la daadiyo iyo qof bini aadan oo dambi yar galay teeba laga toobad keeni karaa bal horta midaas aan kala fahmi lahaa isoo sheeg waxaan fahmi lahaa culimada ma iska inta tiraysaa waxyaabaha qaar siyaasiyiinta Soomaaliyeed sida wada arkayna siyaasiyiinta Soomaaliyeed baa waxay ku tartamaysaa kuraas kii hor istaagan weydiilaysaa gabar ha noqdo wiil ha noqdo hal culimo oo ka hadlayo oo dhahayo mal hal cunugo TikTok dambi yar ka galaa la soo fadhiisanaya gaal waayo diinto ka baxay waxay la tahay waxyaabaha qaar oo lagu degdegayo marka fiirisaan iyo waxyaabaha ka socdo Soomaaliya wallahi billahi tallahi uqubo dhexdan naga soo bixdo wallahi waxa xaqiiqa in sababta anaga ay naga soo bixiso waxaan leeyahay mar raba inaan muuqaalka ku dheeraado haddii cadaalad ah ka hadlaysaan aw Shantaay iyo dadka la midka siyaasiyiinta Soomaaliyeed ka hadla oo aad runta u sheega oo dhiig daadinayo ki kursigiisa hor istaaga dilayo dad u adeegsanayo haddaba haasin dhatirne hadda cadaalad ka hadlaysaan midaas cadaalad u baahan in laga hadlo tan waa wacyigelin kaliya marka waxaan leeyahay mar raba inaan ku dheeraado inta kulankan iyo kulan kale aan dib isku soo laabanayo salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh